Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada video yar aan idin ku tusi doono software la isticmaalo. Softwareka waxaa la yiraahdaa computer hardware. Softwarekan wuxuu kaa caawinayaa inaad wax ka heshid qeybaha hardwareka ee computerka. Markaad soo gashid waxaad dooranaysaa luqadda qaybta ugu koreysa English. Then waxaad ka raadsan kartaa halkan waxaad ugu baahan tahay computer hardware wuxuu yahay ka noqo keyboardka badhamada la isticmaalo iyo wax walba function keyska ama ereyada function loo yaqaano. Okay, xayisiina soo dhex gashay. Marka waa heli kartaa marka dhammaan waxyaabahaas aad heli kartaa. Softwareka wuxuu leeyahay xayisiin leeyahay mararka qaar kusoo dhex galayo. Sidoo kale monitorka oo kale information kiisa uu leeyahay so on hard disk markaad ka shaqeynayso oo kale hard disk haduu ka shaqeynayo waa hard disk caadi ah SSD maahan. Okay, xayisiin ayuu leeyahay. Sidoo kale installing hard disk sida computerka loo baro kale softwareka ayaa xayisiin wata marka sababta ku soo saaraya waxyaabahaas. Marka power supply oo kale halkaan ku shaqeynaya gudihiisa iyo banaankiisa marka English ro macquul ayaa ku yaalo. Sidoo kale RAM oo kale RAM chips soo shaqeeyo waxyaabahaas dhan so on. Marka hadaba baahan tahay halkaas ayaad mar walba ka heli kartaa softwarekan. Waa software free ah laakiin ads ama xayisiin ay wata mararka qaar oo wax qaawan inay ku soo galaan macquul ah. Intaan marka barnaamij kale ku kulmi doono intaas iyo nabadgelyo. Haddaad channelka ku cusub tahay subscribe insha Allah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.